kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waxaa ka mid ah Shah Rukh Khan ayaa ugu dambeyntii Ranbir Kapoor siiyay lacag gaaraysa 5,000 oo rupees maadaama uu magaca filimka Jabhare Meet Kajal asaga bixiyay. Kajal Sharif xilliga uu duubis ku bilaabi doono filimka Baghi 2 oo shaaca laga qaaday. Salman Khan ayaa sheegay in Boori door weyn oo qurux badan ku leeyahay filimkiisa Duplicate. Superstar Nantamuri GR ayaa ku guuleystay abaalmarinta Atooraha ugu fiican ee qaybta koonfur Hindiya bixiso. Qodobadaasi waliba qodobo kale oo aad u xiiso badan ayaa ku daawan doontaan barnaamijka xulka wararka Bollywoodka. Shah Rukh Khan ayaa ugu dambeyntii Ranbir Kapoor siiyay lacag gaaraysa 5,000 oo rupees maadaama uu magaca filimka Jabhare Meet Kajal asaga bixiyay. Bollywood King Khan ayaa ugu dambeyntii aqbalay in Ranbir Kapoor siiyay lacag gaaraysa 5,000 oo rupees maadaama Ranbir Kapoor uu yahay shakhsiga keenay ama bixiyay magaca SRK filimkiisa Jabhare Meet Kajal. Filimkan waxaa director ka ah Imtiaz Ali halka SRK iyo Anushka Sharma hogaamiyaal ka yihiin waxaana la daawan doonaa 4 Agoosto ee sanadkan. Si kastaba ha ahaatee filimkan in magaca Jabhare Meet Kajal loo bixiyay Ranbir Kapoor ayaa ka dambeeyay laakiin Shah Rukh Khan ayaa ka biyo diiday markaas in SRK u qiro in asaga uu magaca filimkan bixiyay. Laakiin SRK wuxuu barta Twitterkiisa soo dhigay asagoo 5,000 oo rupees siinay Ranbir Kapoor balse SRK wuxuu Ranbir Kapoor ku amray inuu lacagta kala bar director Karan Johar wax ka siiyo. SRK sawirka qoraalkan ayuu soo raacsiiyay Jaka Jasus markaan waana ka guuleysatay laakiin waxaan ka codsanayaa lacagta kala bar inaad siisid Karan Johar waayo magaca Jabhare Meet Kajal asaga xitaa wax buu kala bixiyay. sidoo kale superstar Ranbir Kapoor asagana waxaa u diyaarsan filimka Jaka Jasus. sidoo kale filimkan Katrina Kaif ayaa adriisha ka ah waxaana la filayaa in la daawado 14 Juulaay ee sanadkan. Kajal Sharif xilliga uu duubis ku bilaabi doono filimka Baghi 2 oo shaaca laga qaaday marna ma la hilmaami doono actionkii wacnaa Kajal Sharif uu ku soo bandhigay filimka Baghi kaasoo soo baxay sanadkii 2016. waxaa shaaca laga qaaday in Kajal Sharif Baghi 2 duubis ku bilaabi doono bisha Agoosto ee sanadkan. Kajal ayaa 30 maalmood wuxuu filimkan ku duubi doonaa magaalada Delhi. Kajal Sharif filimkan Baghi 2 waxaa lagu wadaa inay la jisho gabadha lagu xanto inay saaxiibo yihiin Disha Pantani. qorshaha filimkan wuxuu yahay in la daawado 27 Abriil ee sanadka dambe. Salman Khan ayaa sheegay in Boori door weyn oo qurux badan ku leeyahay filimkiisa Duplicate. Megastar maalmahan asaga ayaa heesto saxaafadda sidoo kalena sii heesan doono ilaa 23 bisha Juun ilaa tiyaatarada laga saari doono filimkiisa weyn ee la wada sugayo ee Duplicate. sidaa darteed Salman Khan saxaafadda waxay ka weydiisay doorka uu jilaanki weynaa Boori ku leeyahay filimkiisa Duplicate. Boori ayaa geeriyooday bilowgii sanadkan. Salman Khan wuxuu yiri waxaa la sameeyay Boori dhowr filim wuxuuna ahaa shakhsi aad u wanaagsan dadka oo dhanna wada jecel yihiin. aad baan uga naxay geeridiisa markaan maqlay waayo waxaana ka baxay shakhsi weyn oo fanka intii udub dhaxaad u ah. haddii aan u soo laabto doorkiisa filimka Duplicate inta uusan geeriyoon ayuu dhammaystiray Boori. dhinaca kale Sohail Khan oo walaalkii Salman Khan garab fadhiyay wuxuu yiri asagana Duplicate wuxuu ahaa filimkii ugu horeeyay ee aan Boori la sameeyo wuxuuna ahaa qof aad u wanaagsan wax badan waan ka bartay waxaana dhihi karaa jilaa cajiib ah ayuu ahaa. Superstar GR ayaa ugu dambeyntii hantay abaalmarinta Atooraha ugu fiican ee shirkadda Filmfare Awards qaybta koonfur Hindiya bixiso. xidigan ayaa la guddoonsiiyay abaalmarinta asagoo ku hantay bandhigii wacnaa ee filimkii Narnaanku Baramatu kaasoo la daawaday sanadkii 2016. filimkan waxaa wada jilayay GR iyo Raqul Barit. sidoo kale filimkan GR wuxuu ku jilayay nin tagan oo maskax adeegsanaya. daawadayaal barnaamijka xulka wararka Bollywoodka waa ninka intaas waxaan ila socodsiinayaa anigoo Cabdi Cabdullaahi Nadara kulanti dambe oo xiiso leh sidaas nabadgelyo.